السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتا kusoo dhawaada barnaamijkeena hal daqiiqo maanta waxaynu barnaamijkeena u hadlaynaa Andorra waa dal yar oo dhaca koonfur galbeed Yurub kaas oo ku yaala bariga buuraleyda Pyrenees wuxuuna xuduud la leeyahay Faransiiska iyo Spain bedka dhulka waxaa lagu qiyaasaa 467.63 kilomitir square waxaana caasimad u ah Andorra la Vella waana magaalada ugu weyn dalkan sidoo kale caasimadan waa caasimada ugu dheer Yurub oo dhan xagga jooga luqadda ay dadku hadlaan waa Catalan waana dalka kaliya ee luqad rasmi u tahay luqadan tirada dadku waxaa lagu qiyaasaa 77,543 qof diinta ay dadku haystaan waa Roman Catholic dalkan ma lahan military kaliya waxay leeyihiin booliis difaacida dalkan waxaa mas'uul ka ah Spain iyo Faransiiska dalkan ma lahan lacag u gaar ah waxay isticmaalaan lacagta Eurooga sidoo kale ma lahan banki qaran Andorra ku dhawaad 1000 sano kama dhicin dagaal iyo khallaaso taana waxaa u sabab ah dalkan oo ku yaala meel aan istiraatiiji ahayn inkastoo dalkan laga isticmaalo lacagta Eurooga haddana kama mid ah midowga Yurub sidoo kale dalkan ma lahan wax airport ah